casharkan waxaan ku qaadan doonaa layer 2 ether channel. Ether channelku waxa weeyaan waa feature ka faa'iideysanaya bal labadan cable midkood la damiyay in la daaro la wada isticmaalo oo isagu wuxuu ka soo horjeeda spanning tree. Si kale haddaan u dhigno waxa weeyaan waa feature been u sheegay spanning tree. Wuxuu leeyahay spanning tree halkan aad ku arkaysid labada cable waa hal cable. Marka spanning tree wuxuu damiyo labada cable ba waan ka faa'iideysanayna. oo bandwidth-kii ama data-dii aan diranay labada cable baa loo kala qaybinayo wax loo sameeyo wax loo yaqaan load balancing. Marka ether channel-ku shaqadaas uu noo qabanaya in labada cable iyo wax ka badan actually aan isticmaalno inaan ka faa'iideysano aan spanning tree aan wax bedelin. Halkan waxaad ku arkaysan in laba cable kaliya yihiin haddii aan soo kordhino oo ku soo kordhino another cable spanning tree isaga shaqadiisa waxa weeyaan inuu wada damiyo hal mid buu ka soo reebaya. Okay, imka afar cable ba ka dhignay midun baa speedkan yar kordhiyo midun baa shaqeynaya saddexda kale waxa weeyaan waa temporary blocked oo la yar damiyay. afartaba hadaba si aan uga faa'iideysano aan wada daarno waxaan isticmaalnaa ether channel. Layer 2 waa switchkan layer 2 markaan isticmaalno isagoo layer 3 video kala ku arki doonaa. Implementation-kiisa laba option baan haysanaa. Option-ka koowaad in manually aan idhaahdo waxaad isticmaalaysaa ether channel halkan on and that's it. ether channel ku noo shaqeeyo. Iyo option-ka labaad dynamic markay tahay laba protocol baa jira. Mid Cisco kale waa BACB port aggregation protocol, midna waa open standard waa IEEE standard, waa kan hoose waa link aggregation control protocol. Isku shaqay qabanayaan mainly oo difference yar baa u dhaxeeya inta cable ay support gareynayaan laakiin labaduba waa very simple. Halkan waxa weeyaan darafyada waxaan ka dhignaa switchkan haddii aan doonayno labadooduba inay isticmaalaan for example ka hore BACB waa in hal dhinac oo mid ahaada desirable dhinaca kalena waxaad ka dhigi kartaa either desirable ama auto. oo haddii labada dhinacba ay noqdaan auto protocolkaasi kuma shaqeynayo ama ether channel kuma shaqeynayo. Sidaas si lamid ah kan hoose link aggregation control protocol dhinaca aan ka dhignaa active dhinaca kalena option waxaan haysanaa ka dhignaa ama active ama passive. Labada taraf ama labada switch ba haddii aan ka dhignaa passive isna inoo shaqeyn maayo. Desirable iyo active waxa weeyaan always farin bay u dirayaan switch kale waxay leeyihiin waxaan doonaynaa inaan ether channel aan ku sameeyno. We need to form ether channel with you. Farin noocaas oo aggressively kolba u dirayaan message noocaas. Auto iyo passive isagu waxa weeyaan iska sugaya haddii farin loo soo diro waa aqbalaya isagu laakiin farin ma dirayo. That's why labada dhinacba haddii laga dhigo passive iyo passive ama auto iyo auto midba midka kala sugaya dabeetana midna farin ma dirayo. Sidaasana ether channel aan u sameeyeen. Configuration code aan bilowno. Let's go into switch 1. Switch 1 aan u tagno. waxaan leenahay configure terminal waa interface configuration command. Marka bal waxaan sameyn doonaa israacino actually aan xarkaha ka jaro si interface range command aan u isticmaalo. That will be easier. Control baan la taabanayaa waxaan dooranayaa 24 to 24 23 iyo finally 22 marka 22 ilaa 24 baan mar wada geliya anigoo isticmaalaya range command. waxaan leenahay interface range fast ethernet 0/21 up to 24 channel group ayna ku jiraan imsuu noo support garanaya ilaa 6 channel group. markaan numberku khasab maaha labada switch inay isku mid noqdaan laakiin waxaa muhiim ah mode-ka inay isku mid noqdaan. Question marka taan halkaas saarno the mode waxaan haysanaa on oo kii manualka ahaa laakiin haddii labada midkood aan doorno aan isticmaalno lac p. By the way labada nama wada shaqeeyaan haddii dhinacaad ka dhigtid lac p halkan aad ka dhigtid back p ama halkan aad ka dhigtid on halkanna one of the dynamics ether channel kuma sameysmayo. marka ether channel wuxuu ugu sameysmayaa labada tarafood on ka dhigtid labada tarafood protocolkan isticmaashid ama protocolkan isticmaashid inaad isku dhex tagtid mixer karaysid ka yeelmayo. So aan isticmaalno kan aan ka dhigno active. Okay, interface-da waa la daminaya dib baa loo daaraya inta la daaraya kan oo sii tagno. Kana waxaan dooran karnaa inaan ka dhigno passive ama active. So passive kan ku dayno enable configure terminal interface range fast ethernet 0/21
21 up to 24 waxaana recommended ah inaad marka hore interface-ka aad shut down garaysid waan ilaaway waxaana channel dash group any number baad siin kartaa inay isku mid noqdaan khasab maaha laakiin halkana khasab inay noqdaan modku maxaad isticmaalaysaa same protocol active iyo passive baan leenahay interface-kana dib u daar no shut down so let's wait show intaan sii eegno show ether channel summary inoo weyneeyo command-kan ku jeegareyna nooxay show ether channel summary halkan flags baa jira so come here channel groupka waxa weeyaan waa number 2 baan halka ku qoray PO2 interface kala sameeyay weeye S capital S iyo capital S waa layer 2 U daasna waa in use protocolka isticmaalayso maxay waa lag P waa halkan passive baan ka dhignay halkan waxaan ka dhignay active afarta interface-na waa kuwan P daasna waa maxay waxa weeye import channel so speedka tan yar kordhino we can click here afartaba waa kuwa daaran computeradu sidoodii wax ma u dirayaan let's test that tijaabino ping t continuous ping taan eegno okay u shaqeynaya continuous ping taas ayadoo soconaysa kana interface-da qaarkood waan yartaminaya so let's do that labadana soo wada xamilnay hore saddex interface baan tabinaa farintu ma go'aysan no interface range facetana 0/21 up to 23 shut down hal interface baa noo shaqeynaya halka interface waa ka still waxa ma goyn no shut down waqti bay qaadanaysaa speed kalkan yara kordhino oops no shut down marka la yiraahdo ether channel ma xumaanaya that's the problem of packet tracer show ether channel summary still kan wax dhibaato ma arkayo so afarta interface ba maran damiyay doon daaro that's better interface range was ethernet 0/22 up 21 up to 24 shut down afarta badami no shut down all right okay spanning tree hadaba muxuu ka warhaya one more test not here Ctrl Shift L show spanning tree muxuu sameeyay afartii interface hal xabo ka soo qaatay marka uu ku khalkhalaya afartan interface hal xabo yahay marka wuxuu damiyay ma jirto kan waa kan switch kan ku xidhan fast internet ama ku xidhan server kan markii hore muu damineen laakiin afartan waxaan ka soo qaadnay hal interface yahay okay ether channel faa'iidadaas uu leeyahay